agaasime mukhtaar su-aasha kale ku weydiinaa waxay tahay gudoomiye xakiin waxa uu horey u ahaa gudoomiyihii Columbus Ohio xilkaas weli ma isaga ayaa ku fadhiyo mise weli waa xil bannaan bal maxay kula tahay maadaama doorashadiisa kadib aanan xilkaas qofna loo dooranin bulshaduna way isweydiinaysaa horta arrimaha sayto xoogor meerada Ibrahim wax yar ko ina sharax ka bixiyo dadka xoogor iska dhax qasaayan hadii asiga maamulkan usla isku koobana dhoo ana le atoor ay ana le atariish ay ana le laadar ay ana le may dhahayan soo laadar ka higeenka walkas soo dhoo hadda maamulsho automatic maana shut down wanaagada kasteed kula tuuraysa saaxiibayaal meel walba oo aad dunida daafaha caalamka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno xaaladaha kala duwan ee bulshada Soomaali Bantu gudaha Mareykanka iyo siyaasadaha markaasi arrimaha bulshadan ayaanan si weyn halkan ugu jexjeexi doona barnaamijka waxaa marti inoogu ah isla markaana ila falanqayn doona asimaha guud ee telefishinada caalamiga ah Somali Bantu TV iyo Native Somali TV wariye Mukhtaar America Mukhtaar soo dhawow mar kale ku soo dhawow barnaamijkan Ibrahim aada mahadsantahay markii in ku horeyta bulshada idaawadayta salaame barnaamijkan aada aan ku dhawiyo Ibrahim waayahay barnaamijka waxaan ku falanqayn doonaa su'aalo kala duwan ayaan kugu weydiin doonaa oo ku aadan arrimaha bulshada Somali Bantu ee waqooyiga dalka America xaaladihii ugu dambeeyay doorashooyin ayaa la galay doorashooyinkaasi kadib isbedeladii dhacay iyo markaasi xubnihii madaxda ahaa ee la doortay shaqooyinkii ay sameeyeen waxyaabihii ay ka gaabayeen waxyaabahaas ayaan su'aalo ka weydiin doonaa إن شاء الله سؤالها سيتو ديار بان أي وحي مركز سيتو أدقى قبطة يبولشة سيد أنا قلنا وذاكنو سو دي waayahay aniga su'aasha waxaa kugu weydiin doonaa af maxaa tiri adigana kulay jawaabaha waxaa ku bixi doonta af maayga oo dadka inta badanba fahmayaan su'aasha ugu horeysa waxaan ku weydiinaa waxay noqonaysaa sidee xaaladdu xilligan uga socotaa gudaha waqooyiga America kadib doorashada bal waa sidee hadda xaaladdu ma raadinaysaa guryo kira ah ama dhulal iib ah gudaha Kenya ama Soomaaliya hadda uma baahnid waqti badan Jirani Hab ayaa kuu keentay xal fudud oo hufan ka hel guryo qalabaysan ama faaruq ah dhulal beereedyo Soomaaliya ama Kenya guryo iib ah oo dhammaantooda la hubiyey tayadooda amnigooda iyo sharciyadooda kaliya hal taabasho ayaa ka xigta inaad hesho adeeg amni ah fudud oo casri ah ku booqo maanta website-ka jiranihubglobal.com Jirani Hub waa madasha fursadaada wixii faahfaahin dheeri ah kala xiriir telefoon lambarada shaashada kaaga muuqda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بلشدة سلامي آد أنك محسنتان مركلة هدي أنا سؤاشي إبراهيم ويدي ودب أنك نقضنا رنحان دي إبراهيم وحكست جو في عنا يكو سعودان وهديرتان حالد وردس معناها والحد يعني دقاق oo la taabado koro oo bulshadana may way indhoka haayaan male balse may dadka xoogaho aad iyo aad dhagoosho markaas yani dallayana maamulka la dooradii waxyaabaha asaga sawada iyo qaabka maamul iyo asaga san dhiso rabo iyo qaabka markaas ay bulshada asaga san ku horbandhigo rabo dadka waxyaabahaas ayaa aad iyo aad indhoonka haaya laakiin wax siyaasad dibadda iyo dalka oo hadda Mareykanka anaga ka sugno oo qurbaha wal hadda dhaqdhaqaaq oo la taabado Quraan hadda ka dhaxaw oo aragooy ma jirto waayahay gudoomiye Cabdixakiin ku xigeenkiisa warar hoose oo ahayno helnay waxa ay sheegayaan in ay weli wadaan sidii ay u dhisi lahaayeen xubnahooda golaha wasiirada ayna ku mashquulsan yihiin bal arintaas adiga Mukhtaar ahaan maxaad kala socotaa maxaas ku ogtaa waa su'aal aad iyo aad faylanta run ahaantii ilaa hadda maamulka Cabdixakiin oo marka may ka jirana ka mashquulsan yana in ayaga dhisan maamul guud kor ilaa iyo hoos anigana hadeertan wax xog oo la inka sheegay arintaas أنا هذا كده حكورة ما بولشيد هرتان نقول بيكور مجرته balse maadaama aniga kuwada midaysana group guud oo jaaliyada Soomaali Bantuuda oo dalka Mareykanka ka wada midaysan
ayaa inta badan abdeedada marmarka qaar la sadhike maadaama group oo public oo dadka qurbaha kaliya ummada banaaw run ahaantiina may aragooya in waan socoto oo rag waaweyn oo aranta faro kala jiran oo doorashadana markaasayto markii socdayti oo aad iyo aad dadka markaasay oo andheendheey ama dadka markaasay oo lasdhaxaw waa dadka oo anka yani anda garadka ah ama dhalinyarada aqoon-yahamiinta ah oo qurbaha inta badan ayaa ka aragay inkastoo dadka xogta guud ayagana sanka bandhikoyna aan dhehe waayahay gudoomiye cabdixakiin waxaa loo doortay 51 maalin ka hor inuu noqdo gudoomiyaha guud ee jaaliyadda Soomaalibantu ee waqooyiga Amerika madaxduna boqolkooda maalin ee ugu horeyso waxa ay ku xisaabtamaan inay dhisaan golihii wasiirada iyo inay qabtaan waxyaabaha hortabinta u leh hadda 51 maalin ayaa yani kasoo wareegatay doorashadiisa 49 maalin uga dhiman boqolkiisa maalin ee ugu horeysa maxaa isdhihi kartaa way soo bandhigi doonaan marka ay u buuxsanto boqolka maalin ee ugu horeyso xillihiintiisa wallahi waa su'aal kale oo markaasayto bulshada ta isweydiyoyta gudoomiye cabdixakiin maalintii asaga la dooraday iyo dadka qaar hadal hayaan in asaga anka dambeyti media oo soo horhoogsado boqolkiisa maalmoodna wixii asaga hada dadka soo horfadheeda lahaay aniga kollay maadaama hadda ay waan u socoto maamul dhisid iyo waxaas leeka jiran may muqtaar ahaan isleeyahay in kaliya macnaha haddii macnaha sidii la fadooy ka dhikoowe oo sidin ka dhaqsiyaha badan markii inka yarta ma isdhax qoray maamulkii oo dhisan oo complete oo macnaha dhimistirinyo dadka soo horhoogsado doonyan sidaas macnaha golahaynasan dhisni deegaan walbo qaabkaas iyo macnaha dad lanka soo xuli intaas qofood iyo markaas is diyaarani ayagoo diyaar ah kumbad waano inkastoo la karabaay dhaqdhaqaaq walbo ayaga sameeyaan in ayaga la wadaagan baraha bulshada waayo dadka qaar may aaminsan Ibraahimow waxyaabaha qaar badi la qariyay dheegan siyaasad way macnaha lo kaayale dheegan laakiin marmarka qaar siyaasadiyo ba kaysmoyto iyo baba kaysmoyan macnaha taasna meel may ka boqoyte qofka wax qabadshe iyo kartidis iyo may dhahayan iyo wixii yani oo asaga la ko dooro lahay ama awoodis ayaa ba hoos inka dhigoyte kaste taasoo usaadowti ka kasbado bulshada in asaga dhahan ninkan hor socod male marka mashaakor kolay wali la hor kooy koran boqol aan wali intaas way maka dhaxo laakiin aragtida cabirkay taas aan gaw haddii adiga magaalada Nairobi aad safaroyto ka weydiiyay manin ada degaaso ninkaas oo adiga dhibaatooyin fara badan marayti haddii adiga mar walbo qof ada wacayti sidaada manin kale kinga bogaro hadeertan hal maylan helayn Jirani Hub Global ayaa diyaarkii la eta in arintaas ko aabato waa hal mar inta ada website-ka ku booqdaas siska diiwaangeliyaha kadibna maninkeeda fadayto hor unka boogareysadaasoo kaasoo si kal ilaab maninka usoo diyaarkiin aya kinga sadawaaw dunida dacaladiya meel ala meelada ka fadayto hal gol lama gol saddex gol afar gol inka badanba iyo famil buuxo markii ayaga manin fadan ay diyaarkiin ka dhig korte waa Jirani haddaba may sugayto kala xiriir nambarada shaashada ku qoran Jirani Hub Global may diyaaran ate in ayada kin diyaarado maninkaada ka deg lahayti may sugayto booqo maanta website-ka Jirani Hub Global sida in diiwaangelisito gurigaada maanta Nairobi ka fadayto agasim muqtaar su'aasha kale ku weydiinaa waxay tahay gudoomiye Xakiin waxa uu hore u ahaa gudoomiyihii Columbus Ohio xilkaas wali ma isaga ayaa ku fadhiyo mise wali waa xil banaan bal maxay kula tahay maadaama doorashadiisa kadib aanan xilkaas qofna loo dooranin bulshaduna way isweydiinaysaa su'aal fiican way run ahaantii Cabdixakiin sidii anaga oo la socdaynaba gudoomiyaha maamulka Columbus Ohio yahay oo anagana ku warhayni ilaan social media la wadaagi tiina dadkii dhanbaba ku warhayan waa asigoona horeyna hay
gadoomiye ku-xigeenka jaaliyadda guud horta arrimahaasayto xoogawar may rabaa ibraahim oo wax yar ku ina sharax ka bixiyo dadka xoogawar iska dhex qasaayan ninkan cabdixakiin may nasiib lahay gadoomiye ku-xigeenka jaaliyadda horey ahaay oo inkastoo arrintaasayto hadda la kashaltabi laakiin maylis waan qaaday ama balaska kasay in xoogo gadoomiyihii kumeel gaarka in asaga laka dhiko maadaama maamul la-aan maamul xumo maamul yar oo tabar aan lahayn nin dhaanta ahaan asaga lakaso dooradii kaasoo asagana markaas ilaahay in suurtageliyay in iska sheeno maamulada dhanba oo gadoomiyayaashii oo haddana doorashadan tan hadda darad la qabadii oo asaga ka bay ahay markii la kareewo jagada Columbus Ohio usu wali ka fadhi markii su'aalo sannagadano cabdixakiin in asaga ka fadhiyay iyo ogayni kursigaas ilaa haddana may bulshada macnaha social media anka jirta in asaga wali xilkaas ka fadhi asigoona markaasay landooradii gadoomiyaha guud ee jaaliyadda marka taas asaga iyo maamulkiisa ee reer Columbus iyo cadeeyo qoran in asaga xilkii horey ka fadhiyay oo iska casili oo maadaama hadda landooradii gadoomiye guud taas asaga ay reer Columbus ahaan ayaa macnaha shaaci qoran ilaa dadkayna may kala ku xunyana xoogo la ka xamaday anigana oo ka xelooyn bulshada maamul hadii ayaga landoorado maamulki ninka iska dhaafe asigoona social media na sanfadeen oo dhana anagoo hebel mas'uul hebelna ahay hilkaas la indooradii maanta ka bilaawato ana jagadas iska azili hadaba bulshay isagna markaata kanagada dadkii dooradeenna idheegoyan aniga muuqaalka markating ay social media na muuqaalkan isticmaal qoran wiligay ma aragna aniga nin inta badan oo yaani intii xilkas nagado ay arrimaha noocaas oo kala suubiyo may inta badan suubiyayana maamul qofka landoorade maamulkii asiga sidaas la ku shubdhahe hadhow ma wali ay ma ayo waxtii hadda naftarshaba maamulkiisa horey oo cabdixakiin la ka dhaliiloy gadoomiyihii markaas ay jaaliyad intii asaga social media safadheedi ma ka hadalna asaga iyo dadka markaas ay asaga isdooradan oo la ka dhaliiloy oo bulshada ilaa arkana macna hadalladaas ay waankaas ay ka dhax socdaan wayahay way cusub tahay maamulka cabdixakiin oo uu hogaamiyaha ka yahay marka rajo badan ay qabaan bulshooyinka ku nool Mareykanka iyo Soomaaliya bal maxay kula tahay adiga ra'ay ayaa laga filan karaa wax qabad noocee ayaa laga sugayaa run ahaantii horta maamulka cabdixakiin sax way sida sheegtay way rajo badan la ka qabo dadka dalka roogan iyo kuwa markaas ay dibadda roogan bamay hamisho ka jira in aytiinka dambo dadkii la sadhaafi in wallan qabado qof walbo Mareykan maanta ka sagunya asaga may ham le dalshe in marka nabad anka dheedo dalshe iskiga noolado higa may way caanadis iskiga maalado beertis iska falado ambashe markaas isku gurido hamisho horta anka weyn dadkan jaaliyada waa kaas haddaba cabdixakiin iyo kolley iyo maamulka kaleba hadii isaga ku guuleysad lahaay xilkaba la ka rajeeyay in arrimahaasayto may dhacayaan in ayaga oo qeyb li wax le ka qaadada an agta mustaqbalka kolley cabdixakiin aniga la kulmi si qaasna la kulmi si hoosna wal waraysadii oo markaas sidii hadaf dhiyay warar badan oo social media talanka siiday koran lanka warama qoraynana in sheegay bulshadana la danlaya oo asagana lay qaarna asiga ayaaba ka hadalay oo dhayba aniga hamika leeyahay mar aniga shirki Milwaukee aniga markaas ka qayb galay oo naftarkayna SBTV aan ninka Azumi oo aniga markaas ka siidaynay bulshada kanagada koran fiiri koran future-yaalka amaba hadafka ama mustaqbalka oo cabdixakiin oo asaga ama damaca Soomaaliya kalay asaga maamul shaadi asaga xilkan ku guuleysado wixii asaga ballan qaadi en YouTube ka SBTV inta ay galan ya daawada koran waxyaabo badan ballan qaadi laakiin mal hubiyo boqol wax kasta sidii qofkan ballan qaaday in hirgalaan laakiin walla ka rajaqaway in mustaqbalka oo Soomaaliya dhan siyaasadis deero doonta oo aan ka akaadayna mid Mareykanka kali musharaxiin ayaa jiray oo cabdixakiin la tartamay inkastoo isaga uu kaga guuleystay haddana professor Cambuulo iyo ninka la yiraahdo Taadiri
waxaa la leeyahay rajo noocee ah ayay leeyihiin maadaama ay ahaayeen murashaxiin si weyn usoo tartamay doorashada soo socoto ma la dhihi karaa yacni meeshay hadda soo gaareen iyo meelo ka fiican ay gaari karaan. sidoo kale su-aasha xigto laba su-aal aa iskaasii dul saaraya. tan kalena waxay tahay murashax saddexaad ayaa jiray isagana cododkii ugu yaraa ayuu keenay bal muxuu ka baran karaa waxa dhacay muxuu iska bedel ah ka samayn karaa. si kooban haddii su-aalahaasi inkasal jawaabo waa midda koowaad cabdixakiin ay la tartamayay 4 musharax oo markaasay ayaga dhan wada ruqcadayaal ahaayeen oo sila taagnaayeen markii dubeydka dhiyay meelasayto wacdare ka dhikan ayaga dhan nin walbo kartadis ama liwaxlimidis banaanka salabay walla iska shal reebade male hataa hadii sheekada kaftan ahayti kaftan moodi kastay wana waa wax lan baahanyo oo anagana 10 nin ay walla iska yaawo maaha hadii oo arrimaha noocaas oo kale dadka qaarsho macnaa aragan fasme ogsun ninkii siyaasi macna fahansiin iyo mar walbo warbaahinka daawadaw kuwa telefishinada ku waramaan daawadaan ay ku warhay siyaasad qaabkii shaqeeyas qofka hadii walaalka tay aaday aw ku etaan hadii maanta adinka ku kulunta meelas oo kale xilfoonis qaadasan laakiin idinka hoos mayway walaala ka etaan run ahaantii cabdixakiin iyo meel may dhahaayeen asagana cabrshaka hadalay ambulo ya ka hadalay cabdiqaadir ka hadalay sida oo kale may dhahaayeen ninka Usmaan Nuura ka hadalay markii la kareeyo labada qofood oo markaasay iska cazilan oo ka qayb gal waayeenba. daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkeenii gaarka ahaa oo aynu ku falanqeynaynay arrimaha bulshada Somalibantu ee waqooyiga Amerika. su-aal ku weydiinaya waxay tahay mar walba waxaanu aragnaa dhalinyarada ku dhalatay Mareykanka oo qayb ka noqonaya arrimo amni darro isla markaana la xiraya bal maxaa ay tahay in laga qabto arrimahaasi ayna ku qasban yihiin madaxda hadda la doortay ee muddaxileedkoodu bilowga yahay. waa run Ibrahimow Mareykanka caqabadooyin badan jiran dhalinyaro far badan wadankan markii ay kooyaan noloshadiyo saaf jarantii qaar jeelka jiran qaar la tarxiili qaarna mayway aqlalaamo waay hadeertan nolol faylan ma haysadan waalidina toos ma noolyan waxyaabahaas waa waxyaabaha oo waalidiinta hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed oo maanta Mareykanka ku sugan oo caqabad weyn ka haysadan way arrimahaasna mayway maamulinta ayaga ayaa maadaama mas'uul aniga ana dhahan ayaga aan xil saaran in ay walka qabadan run ahaantii hadii hadal yar oo kooban meel su'aalas ana ka bixiyo sharaxaad cabdixakiin hadda waa ninka hadda gadoomiyaha ku guuleysadii asiga maamulshe cabdixakiinna dhowr badanna may asiga dadka reer Columbus ahaan ka faanayana ana aragay oo dhahan cabdixakiin waa nin yani oo wax garad oo ah maamulka Columbus asiga markii aan landooradii ka bacdi maamulka Columbus xoogo isbedel weyn ku soo bi oo dhalinyaradii Columbus oo haayo mar walbo istatoogada jirtay ana hata kale warmooy qof walaalkay hata meel saas oo kala ku toogadi oo aniga qaraabayna sidaas oo kala macnaha ka dheedi waxyaabaasna waa caqabadooyin aniga naftarkayn aad nidaam qadaayan inkasto walaalaha kale oo aniga markaas oo Soomaaliyeed oo meel ka dhimadayaan oo walaalooyin kale ayaan hadana mayway lafo mayway la shalay oo la isku dhadhoobiyo saas ayadoo etana hadana mayway cabdixakiin markii bariyi dambo may aragayn in isbedel oo caadi aad macnaha weyn asay ku suubi wal laka kaay korma ma dhahayn Ibrahimo waayo qof walbo wanaag hadii suubi oo mashaakor koleen wali iyo suubiyan oo ila arkan oo arantas oo ka hergeli hata may kalo jirte maamulka oo jaaliyada Columbus waa kuwa jilacda iyo jareerta ahaan markii la shaldhiko waa laba JJ kuwa marka Soomaali jilacda arantas hali waay ka fashilmen si toos media ma an ka dhaho laakiin anaga ka dhaana kaayoyan laakiin cabdixakiin dadkii arantas ka qayb qaaday ilan dilka may ka socdaay labada dhinacbo dad Soomaaliyeed islaayeen kastay oo xabada iska laayeen
waxa sayto dhan marka lamada dhinac la halay moosha qaabka iyo farsameen laakiin may dheegay in maamulka suubiyan dadka degmada in yani nidaam oo fayl ayaga en la seedan oo dhalinyaradii in yani wal kala macna barnaamij kala loo furi bedelkii ayaga xashiish iyo bilaay walaaqas oo kala macna may wetan adada su'aala ayaa ka jawaab naqadaasa kuwa kala oo Mareykankana ayagana saas in ayaga ka dhaadhaasiyan aniga bareer Columbus saasa iska xilqaanay suubinay isina suubiya ilaan asiga maamulka asiga lanka baahan in asiga dhiirigeliyo gadoomiye walba intus ilbaabkan seedo macnaha aranta sidoo in ka hirgelin amal asagana dadkaas ama hadii barnaamij la furi amal iyo hadii yani in yani wada shaqeyntiya kamid ah Soomaa oo wixii macna la iska ra'i dhaafsadooya kamid ah arantan marka abdaxkiinka may asiga maamulsha la karaba in saas oo kala suubiyan group iyo maamul inta dhiso meel walbo macna dadkan oo macna seminar furo hata oo ilaahay kiiroonya marka in sheego nidaamkan suubiya taasna oo markaasi naqadaas hal aramahan oo Mareykanka ka taagan in oo يعني او لكسرات كرو انا تاسا دها لهاي waayahay qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan soo gaarnay bal maadaama gudoomiye Cabdixakiin mudxiliintiisa cusub ay tahay mid hadda kooban maamulkiisana uu yahay mid curdun ah oo hadda bilow ah bal adiga muqtaar ahaan maxay kula tahay fikir ahaan maxaa bulshadan ay ku horumari karaan ama haddii lagu dhaho talo u jeedi talo noocee ah ayaad u jeedi lahayd oo wax qabadkooda ku aadan horta niyo aadan faylanta su'aala sayto aniga ka muqtaar ahaan markii arintan walka dhaho maamulka Cabdixakiin horta sidisba Cabdixakiinka sidii anaga barnaamijkana bilowshana wal hal lama san ka taabadi Cabdixakiinka nafsidiis ahaan ayaa dadka may qaarsho qawana in asiga maamulye vision lahayn macnaha aragti dheer lahayn oo wal yani bulshada la ku hormariyo dad badan waxyaabaas aaminsanyo si hoos iyo si guud bandheeweyn oo ata anti doorashadan dheegayni ilaa hadana armaha sayto ata waan bawiya ka dhaladay oo aniga waxyaabaas sayto ka warhaay laakiin wal oo social media inta badan la sadhiko la kafaano ma mayl ka dhay umada ama dadka ceebtiyo adi mas'uulkaat in asturto way marka aniga waxyaabaha barko dhiyaan may hanuun haboonta in anagana ka gaabsano waxyaabaha qaar hasi ahaato marka Cabdixakiin maadaama dadka dhaliilka qaban oo layan Cabdixakiin hormar mashaynaw maamulye ayaa marka ayagana may hilmaansiyana Cabdixakiin maamulka asiga dhisooyo maqaabki xoray asiga maamulka san wadaayile kan sun wado rabe su'aalas in ayaga iswarsadan way horta kooti hadii ayaga su'aala sayto jawaabti waxa nagato Cabdixakiin markaas la kiyaabe maamulsha in meel bandeerna taasoo markaas sayto dadkii hadayba qawaayaan Cabdixakiin maamulka meel madeerow tii ay qawaayaan rumowas sidaas daraadii may dhahlahay maamulka Cabdixakiin sidii horaanna hadda ku horna barnaamij aan ku soo beentay Cabdixakiin landoorana Cabdixakiin qaabkii maamulka jaaliyada horay fishilmi aan dhahnay kaas fishilmi halaabi bulshadana eeda macna aan dhaliilan oo markaasay asagana dadka markaasay ka shaqeeyay kamid ahay amalkan hanagana marka sidaas daraadii Cabdixakiin sidii anagan aragaynaba may dooraday gadoomiye ku xigeen oo markaasay oo wax arag dheer leh oo hatta siyaasadda dalka Mareykanka qaasatan deegaanka asaga markaasay degan la ku soo doorado oo walaalka ay xildhibaanka ay sidaas daraadii may aaminsan anaga ka muqtaar ahaan rag waaweyn oo dhinaca siyaasadda dalka Mareykanka oo lug weyn ka leeyahay oo inta badan social media san ka hadlayna san fadheedayna oo in sheegayna jagada ayaga ka haayaan
mashee kor ka xishooday miya mashee kor marka ayaga baan fahansanayn miya qaabka warbaahinta la weydiiyo iyo qaabkan iska xiro marka dadkaasay to dhan isku soo dooduwe marka hadii Cabdixakiin maamul ka dhafanyan taas ana may aaminsan Cabdixakiin maamul ma fashilamo ee horan socday waayo asaga hadii oo lazy nagado dadkan ayaa markaasay anaga sharaftayn jecelna hadii sharafta ma jecel dhaayan may ka qasbaayana in Cabdixakiin waa asaga motorki gaaskina ku shuban oo kadibna marka kiyan macna hor sii socodsiyan marka dadka oo dhaliilka gawan anaga taas ayaa aaminsan oo leeyahay in ayaga oo ogaadan marka kuwa kalena hadayba ogaayeen Cabdixakiin in asaga wax qabad leh Cabdixakiin aragayni bari dambe in asaga maamulyo walka gabadaay dad badan oo marka qalabtiyo marka wal isdagaalen oo iska sheenay sida Utah oo kala aragay in asaga barnaamij asaga baranka qayb gali Columbus Ohio oo waan badan ka taagnaayay oo saxaysday aragayni oo dadkii markaasayto oo mayway salaana weyn oo hab isiyo oo heshiis dhaxmarooy arintaas dhan waa arin fayle qofka bini'aadinka hadii uu wal fayle suubiyo walaayo fayle suubina la sheege hadii uu wal hun suubiyo walaayo hun suubiyo la sheege marka dadka meelan baayna lamada aragtayna shalaxaadan maan dhinaana qabadan marka simbar baad ina saas ahaato la fade sidaas daraadii aniga may aaminsan ka muxtaar ahaan maamulka Cabdixakiin sida hadda aan dhahooy hadii la ka dhaweeyo in arantis hagaagaso wal qabad leen in asaga la kooyo waa hadii markaasay sidaas la weelo hadii la weelnana hada dadkii wixii horaan macna insaadaaliyaan oo nimankan hadda aan kiin sheegay hadii ayagana iifadan Cabdixakiin hadda marka hal qof way sheegayis wal ma qabado hadii asaga maamulkan usla isku koobana dhoo ana le atoor ay ana le atariish ay ana le laadar ay ana le may dhahayan soo laadarka higeenkay walkas soo dhoo hada maamulsho automatic maana shutdown anaga kaste bulshadan saameyn ma kala hadaw hadayna ka filadaynaya dhahayan dad taasna asaga ayo samcadis ayaa marka mustaqbalshe bahdilka ati macalquusiyay qaraabadis waayahay waxaan isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena markana waxaan isla eegaynaa su'aalaha Afrika gudoomiye Cabdixakiin waxaan xasuusanaa in markaasi uu aad galaangal ugu lahaa wiil qaxootiga markaasi dil ku geystay arintiisana muddo markaasi ay ku kala aragti duunayeen madaxda ama gudoomiyaasha gobolada haddaba arintaas halkee ayay wax marayaan hadii ada Nairobi umbahoyta ama safaroyta adiga qaraawada iyo qoyskan wali may soo biyoyta intii adiga dhalinyarada meelas ruwan ama dadka meelas ay ruwan ya telefoonka angaboyta dhahoyta minin indadaya sidaan andago hadii taas soo biyoyta wali dambeet booqo maanta website-ka la dhaho jirani hubglobal.com arintaasay kiin fududayti adigoo mininka meel aad roogto ka dooradaasa ka buugareysadaasa sidii markaasay kiinso dhawaan jirani hab ma intaaganta in dadka dantiyo infududayto hawa su'aal aad iyo aad faylanta Ibrahimo waana bulshadan aad iyo aad ka warhaayan arintaas mar walbowno ndoo ka haayan ilan taas may ba tusaale keenka ata macnaha maamulka Cabdixakiin naftarshe macna tijaabi ka ata hadisina landhiko macna tijaab wax asaga la ka tijaabiyo moqtaa qofka markay asaga yani mas'uul aya walna hergale walna ka fashilmay walna marka aan hergale waaye marka aramaha say runaantii hadaan su'aasha si kooban markaasay aniga ka jawaabo runway ka kala aragto duwanaayn gadoomiyayaasha oo maamul goboleedyada oo ama gadoomiyayaasha oo magaalooyinka ee maamul goboleedyada ee dalka Mareykanka dadna may way Cabdixakiin la safanaayeen dadna may way aragtada Cabdixakiin ka soo horjeedayeen dadna may way shubba iska dheenba meelba maranaba يعني كجابسدن أرنتس ما بك حضلنا هذانا سي هديلن دكو رق واوينا كقيب قادم أو ما يدعيان وسو دك ككل أركت دونا يدينا كهر مريو سي توس أي العقد سي مقطع إنك ديوين ميل أو ديواتة دك ديدي أما رق أو مركلن حلساري أرنتس أما بقضياش أو دقمتك أو لن حلساري مقطع سي توس العقد جانت كسارين هسي هات دك كلو مركز سيتو أو شب إسكدين إلا هذا يرتانا بس مديبنا أيه إلا هذا يرتانا ما يدعي Cabdixakiin والمسينة أرنتي نساسا شب مكدين هل كقو Cabdixakiin تاجرسنا يعني لعقد Cabdixakiin فرتك سارين
marka su'aal may waa abdaxkiin lacagta say wali haaye mase dhiibi way haddana kaste ma ogsigna taas abdaxkiin la warsade sidii walweeli laakiin may ogaayay asiga hadii oo warka sidii ana ka heli hadii la abdaxkiin oo ku guulaysido asiga hoola say gidaala ka dhimistire haddii asiga ku guuldaraysidoonana gadoomiyaha kala cusubun koo ay xilka ka wareejiyay arintaasna asiga kala dardaarane sidaas ogaayni hasi ahaatee dadka qaar maana walaan ka shal aragto duunaayeen hadii wal yaran afteeniyo abdaxkiin qaabka asiga damacsanaayay dadka qaar mufadayn ma ka helna may way wali iyo aan ka helna abdaxkiin may dheena sidii anaga hadalada ka helni may rawaay asagina lacagta aruuriyo kadibna asoo lacagta boorsanka jirto seedo dadkii markaas oo mas'uulinta reer dhadhaab oo ayaan seedo iyo odayaashii oo markaas ay qabiilada weero sidaas ay lacagtii asagoo oo mas'uul sare oo ku kooy ee qurbaha metlooy oo gadoomi lacagteena farta ka saaro haddaba taasay may aragana dadka qaarsho arintaasayto in aan suurtagalayna abdaxkiina sidaasay in asaga aan ku suurtagalayn in la qiyaano kor ama macquul ah sidii hadda ku horbo aramo qaar oo may dhahaayeen abdaxkiin oo waxyaabaha hata dadka Columbus oo iska galbadeer ama maamulka hore wali ka fashilmay bokokoyti sidaas daraadee may dheena ninkan abdaxkiin sidii haddana neela danlay anaga sidaas dartiye ma aaminaano mana rabno hadii kale ma ahe doorashada markii la qabado aan isku imaano oo wax guud aan wada qabsano kadibna markaasayto hal meel aan ku wada duno ma eme nin walbo macna meelis haka shal aragti duunaadu horta armaha taas saas ahaayeen wayahay dhinaca kale bal arrimihii generaal sheegow dhalinyaradii xirnayd hore ayuu kaga hadlay gudoomiye cabdixakiim waxa uu sheegay in dhalinyaradii la soo daayay bal dhalinyaradu waa la soo daayay halkaas ayuuna ugu wardambeysay oo dib war kale looma helin halkii ay ku dambeeyeen iyo waxyaabahaas kale iyo arrimihii generaalka intii uu xanuunsanaa kadib geeridiisii iyo bal arrimahaas maxaa adiga kala socotaa horta waa su'aal kale ayadana aad oo Ibrahim oo faylanto bulshadana hadal haayaan waana dhinaca xamaasadiyona aad anka ka haas hadii la ka jawaabtan ama ba hadii su'aalan amal la sideero runtii abdaxkiin hata may kalo bulshada ta la isweydiiyay oo isla dhaxmaraay lacagta generaalka la aruuriyay to hadda ka hor asaga oo may dhahaan la ka caabiyo la fadaayo oo makti iyo qaabkii asaga macna jeelkaas lan ka safakiilay asaga dhalinyaradiisa alla aan naxariisado la iska haysaday la ka shal aragti duunaay waa isla meeshii oo kale qaabkii asaga ta fadaayna haddana waa qaabka oo markaas ay maamul goboleedyada dalka Mareykanka ama gadoomiyayaasha ka kala aragti duunaayaan ahaay hadii si kala la dhiko unkama dambeyntii kulay sidii aan horaankii sheegay ninka siyaasiga ah wax kasta ma sheego intii media safadheedo oo dhaho ma dhahaw anay saasa walweelo raw saan walweelo raw laakiin markii la kareewo qofka asaga aan faylanta credit nan ata in asaga mar walbo hadalo kasab ma sirta dhan in aad sheegto si dadban ayaa warama korto adigoo bulshada markaas adiga ka faanoyta ama maamulka ada markaas kiin dooradan fadoyta adiga markaas in faanoyta la taana kan iyo kan asiin qabadi saan isaanna rabo ada dhahaas adi ma ana credit kiin atay dhalaay oo anaga ku buugaadiye oo yaani mar walba ka dhiirigaliye dhalinyaradeyna oo xushmada mudan hasiyaate markii su'aasha la ka jawaabo may abdaxkiin ama gadoomiye abdaxkiin ka dhawaajiyay in arintaas la ku guulaysidii oo dhalinyaradaasay xur nagaday inkastoo generaalkii sadeys midis la ka fashilmi ya dhax korno aad balan ka fashilmi wana eebnan ata dadkeena Soomaali bantu aan samcad iyo yaani sharaf iyo kulibo intaasay dhaawacaasa waayo wal kasta lacag la ka bixiyo qofko yar oo lacag maq inta la aruuriyo malka bihi waayo hasi ahaato kale qof walbo wali ilaahay in qoraya mare anigana tan kulay wal aniga 10 nin ahaada saacato marka dhalinyaradii hadii sanagado bariyaha damba may ogaynay in arintaasayto aad dood inka taagnayti dhanaca mar may la eedayaay kuwa marka mas'uuliinta oo may dhahaayaan oo ka jiran dawladda federaalka ayaa eed dusha la ka saaray ayaga hortaagnayaan ayaga caqabad ka ayaan hadii la sii daayay la dhaho dhalinyaradaas
sas daraadii marka dhalinyaradaasayto aqabad badan iyo culeys badan iyo dood badan baa ka socdayti mar ma ila dhahay maamulka Cabdixakiin naftarshe lacagta asaga aami ama dan iyo kalaya waxyaabo badan iyo marka bulshada la isla dhaxmaraay Ibraahimow taasoo markaasayto Cabdixakiin oo kama dambeyntii fishiliya dhac qoro sidii afbiyaas ka dhawaaji oo dhay dhalinyaradaasay xuriyo way may cadeeyna ka haysina anaga markii oo dhalinyaradaasay kala la kareebo hal wiil Maxamed Deeq dhahayan oo magaalada Luguston kokoy oo ka bay oo Mareykanka kamid ahaay oo la ku soo dhawaay aragay oo xaflad weyn oo soo dhaweeyna markaasay infadiyaan Cabdixakiinna aad markaasay arintaasay ka dhax muuqday iyo dhalinyarada markaasay ama reer meen oo dhanba si guud iyo macalmay dhahayan gadoomiye xigeenshee Hildhibaan Jaamac oo markaasay andhe Maxamed Jaamac oo markaasay oo armaha sayto kulli oo jugdi badan isla wadaayn marka may wali su'aal ka taaganta calaamad su'aal yaale oo maamulka Cabdixakiin naftarshe guuleysadii dhaxooye adeen rasmi oo la iska xalaay karo boqol wali banaanka ma sadhigna waranti leeda waranti wali adeen rasmi ma dawraasina macnaha hadii si kala aan dhiko dhalinyarada dhan media malka aragna hadii dhinaca amniyo lan absadooyna in tiidiya goon laakiin taas mayl ka rabe maamulka asiga ayaa mas'uul ka in asiga inta safadheedo TV-ga hadalo ama afhaayeen yan hadalo dhaho aniga arintaas isaasa welni anina mas'uulkay wana dhaarada in dhalinyaradaas la sabiina dhaho ahayti taasna masuubana waa waxyaabaha ta Cabdixakiin iyo maamulkiisa ta hadhow aqabad ka nagada koran dhinaca bulshada oo hadhowtina markaasay la dhax qoro dadkan macnaha dad oo dhinaca media ka hirinya ma aha bulshadiyo mar walba ma la shaqeeyaan wal min sheegan marka may way dad oo hor u socod leh ma ahan marka ma ka faylanya mid kalena kiiraasiyo Ibraahimow maamulkan qaabkii lan dhisi maamul may way very serious way kastay macnaha maamul oo may way ndoosho macna si jiidan way dadka dhisi ragga dhisi culimo ka jirtay dad caama ka jira dad waaweyn rag waaweyn ka jiraan dad oo yani wax garada ka jira dad aqoon-yahamiina ka jiraan kastay maamulka hadii asi wax yar official ka arago impeachment wala dhaha wala ku suubiye maamulka oo macnaha maamulka xilka qaadisa la ku suubiye walaagas dhana dastuur al ku qoran yalan diyaari iyo naftarkiyo saxiixan markii musharaxiin ay ahayn oo ngororeen tartanka taasna in ay ku buraarugsanaadaan way hadii adiga shaqabadka liyaso oo may dhahayn aad sida haday barnaamijka bilowga adiga in ka weydiidi su'aasha oo sanadkii in ku horeeyay oo adala ka fiiriyay boqolka maalin dhamaado ilaahay kiiroonyo sanadkii ku horeeyay baan dhahay wax qabad ada oo bulshada la horkooyn sanadka la maaykin dareer hada dadkan maylka yaabina kin go'aansadan marka sheekada si horay ma aha ana la sidii fado weele sidii ana rawle macna iska ahaada sameeyna baasha ana la iska haysida iska fadhiye dhamaati kastay marka aniga ahaantay ka muxtar ahaan maamulka Cabdixakiin ya hooyo in ay aramaan xil iska saaran oo mar walbowna bulshada la wadaagan update step by step yani in bulshada mar walbo xamaasadiyo saas in kiisanaato ilaa ay guusha ka deereen 40 sano ku go'aas aniga taas ayaa waliba aniga raasi lahay adigoo su'aala si aadan ka mahsanta oo weydiyaas wayahay aad u mahsan tahay agaasimo Mukhtaar halka ayaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal barnaamijkeenii falanqaynta arrimaha beelaha Somali Bantu ee waqooyiga Amerika iyo Afrikaba barnaamijkan dhinacyo badan ayuu taabanayay haddii aad ku cusub tahay channel-ladeena iyo Facebook-geena iyo sidoo kale TikTok-geenaba leexar muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada kale oo share leh ka mid noqo oo ku soo biir saaxiibadeena ehelkeena aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa ilaa dhamaadka aad nala soo gaartay sharaf ay noo tahay tan iyo barnaamijkan kiisa xiga inta aan ku kulmayno waxa idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo